Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somalilan Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta kormeera xarunta guud ee taliska sirdoonka qaranka, waxaana halkaasi ku soo dhoweeyay taliyayaasha iyo saraakiisha kala duwan ee ciidanka sirdoonka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somalilan Muuse Biixi Cabdi waxaa halkaasi warbixin ku siiyay taliyaha ciidanka sirdoonka qaranka, Maxamed Saleebaan Xasan Sablaale, ayaa madaxweynaha uga warbixiyay shaqooyinka kala duwan ee ciidanka qaranku hayaan iyo horumarka ay sameeyeen, waxaana uu caddeeyay inay gacanta ku hayaan ciidan aqoon ahaan dhisan qarankana ay shaqo muhiim u hayaan. Madaxweynaha ayaa kormeeray dhammaanba qaybaha kala duwan ee xaruntu ka kooban tahay, ayaa taliyayaasha kala duwan iyo saraakiisha ciidankaba ku ammaanay shaqada adag ee qaranku u hayaan, waxaana halkaasi kula dardaarmay inay shaqadaasi sii bilaabaan ay u hayaan qaranka Somalilan. abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Mar kasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus